Qaar ka mid ah tuulooyinka degmada Wallaweyn ayaa waxaa soo gaaray fatahaadaha webiga Shabeelle. Goobtan hadda aynu joogno waa mid ka mid ah tuulooyinka degmada oo lagu magacaabo Xabaalboorow. Waxaa qayb ka mid ah beeraha saameeyay biyihii soo fatahaaday. Tuuladan ayaa waxay u dhowday xuduudaha Koonfur Galbeed ay la leedahay Hirshabeelle. Qaar ka mid ah dadkii halkaa ku noolaa ayaa barakacay halka dadkii yari soo harayna ay isu diyaarinayaan sidii ay iyaguna ugu dhaqaaqi lahaayeen. Beeraha ayaa waxaa buux dhaafiyay biyihii oo 3 maalin soconaya. Biyihii far ayay yeesheen waxayna u sii gudbayaan beerba beerta ka dambeyso. Cabdinaasir Cabdullaahi Koosto wuxuu ka mid yahay dadkii beeraha ka saameeyay fatahaadaha webiga. Wuxuu sawirayaa isla markaana ka warbixinaya siday wax u dhaceen. Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan idin sheegayaa biyahan waxay ka soo baxeen maamul goboleedka reer Hiiraan. maanta 3 waxay ku socdaan gobolka Shabeellada Hoose. biyihii khasaare ay u geysteen dadka shacabka sismankii xaaladooda saan tahay muddo 5 maalmood ama 6 haday ku jiraan waa khasaaro. awalkii horena abaaraha dhulkaas 3 sano abaar ahay dawga hadii qaarku ilaahay nasiib biyo fasaad ana soo galeen ayaa tiro badan soo maray dad aad iyo aad gurmudka baahan wal kastaba ama nolol ama jiif walba haysana atayo baahna siyeera leen baahnya nolol maalmeeda leen baahnya dawladda may ku codsadaane wal alla walaayin hala koro dadkaas taaba asanaayna maanta ku horna 3 sano abaar ayna maantana ayahi ibiya wada kulmeen aad intaaba san iyo muslimiinta Soomaaliyeed dawladda may ku codsadaane si degdeg gargaar inanka fidiyo Allah gargaar leh si degdeg wala sini daarsiyo fadano dawladda federaalka iyo Koonfur Galbeed way ba ku codsadaane in gurmud degdeg in suubiyaan kulli ina wal garabnisiyo dadka tuulooyinka deganaayeen kulli oo social kaheen biyoy webiga soo fatahaadeen si un walweelaana male walaalayaalow ina garabnisiida ilaa garabnisiida baahna webiga aperta daraskay ka jiraan aad soo garabaan kulli aad ma baahna gurmud degdeg baahna kulli hadan lutaan soo galeen kulli si un walweelaana male beertii sidaan dhoorani sidaan in awarsi arago haytaan si un walweelaana male gurmud degdeg baahna. Marka aad aragto sisinta digirta iyo qaybaha kala duwan ee dalagga sidoo u baxay waxa durba maskaxdaada ku soo dhacaysa in sanadkani uu yahay sanad barwaaqo laakiin waxa beeraha saameeyay fatahaadani ka war cayayaanka ayaxa ama ludayga ka oo beeraha qaybo kamid ah ka dhigay meel maran. Haddaba fatahaadani haddaan sida ugu dhaqsiyaha badan laga soo gaarin waxay keensanaysaa hoos u dhac dhaqaale inay wajahaan bulshada reer Wallaweyn sababtoo ah beeraha waxay kamid yihiin ilaaha ugu muhiimsan ee ka soo gala dhaqaalaha degmada Wallaweyn. inkastoo tuuladani ay u dhowday xuduudaha ay wadaagaan Koonfur Galbeed iyo tan Hirshabeelle ayaa haddana waxay ka mid tahay tuulooyinka ugu wax soo saarka badan marka loo eego dhigooga kale. Qaar ka mid ah dadka yar ee halka ku soo haray ayaa waxay ii sheegeen in karitaanka sisinta ay ka harsaneyd in ka yar 1 isbuuc. hase ahaatee waxa bulshadani ugu muhiimsan sidii loo joojin lahaa fatahaadani inkastoo daqiiqada ka dambeyso ay xawaaraha biyuhu soo ziyaadayaan. ugu dambeyn waa kan mar kale Cabdinaasir oo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo tan federaalka ugu baaqaya in laga soo gaaro intay goor tahay. way bas in sheegan hadiisan Koonfur Galbeed tan dadka shacabka Koonfur Galbeed inay walan qabato iyo fadaane intaas in sheegan. Dadka ka qacay tuuladan ayaa waxa ay ku dhibaataysan yihiin meel cidlo u go'doona waxayna u baahan yihiin cunto sinsiyeeriyo iyo bustooyin ay markaas ka hubadaan qabowga iyo dhaxanta. dadka ku nool tuuladani ayaa waxay sin naxariis iyo dareen la kaga codsanayaan hay'adaha gargaarka iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda goboleedka Koonfur Galbeed in la soo gaarsiiyo degdeg. Cabdiqani Maxamed Xasan warbaahinta Koonfur Galbeed Wallaweyn.